daawadayaal maanta waxaan rabaa inaan idinkala hadlo sida aad isaga badbaadin kartaan xanuunka coronaviruska. Ugu horreyn, inaad gacmaha saabuun iyo biyo ku maydho muddo ugu yaraan 20 ilbiriqsi ah. Iska ilaali inaad taabato wejiga, indhaha iyo afkaaga. Gacmuhu waxyaabo badan ayay taabtaan, sidaas ayuu xanuunku ku fidaa. Iska ilaali meelaha dadku ku badan yihiin. Marka dad ku dhex jirtid, masaafada idin dhaxaysa ilaali. 2 mitir ha idin dhaxeeyaan adiga iyo dadka aan guriga kula deganayn. Guriga joog haddii aad xanuunsanaysid. Tusaale ahaan, haddii aad xumad ama qufac leedahay. Haddii aad qof yar tahay, waalidiintaada ayaa shaqaale caafimaad la hadli. Guriga joog, gacmahaaga nadiifi, isbadbaadi. Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.